dhacdooyin waaweyn ayaa ka dhacay dunidan sanadkan 2020ka. ciidamada Mareykanka ayaa duqeyn diyaaradeed ku dilay Generaal Qasem Soleimani oo ahaa taliyihii guutada Qudus ee ilaalada kacaanka Iran iyo ku-xigeenkii madaxa kooxda Xashd Shacbi Abul Mahdi al-Muhandas. duqeyntan ayaa ka dhacday meel u dhow garoonka diyaaradaha magaalada Baghdad. 8 Janaayo ciidamada Iran ayaa weeraray saldhig ay ciidamada Mareykanku ku leeyihiin Ciraaq oo lagu magacaabo Aynul Asad. Iran ayaana sheegtay inay u argudaysay Generaal Qasem Soleimani. Isla Janaayo ciidamada Iran ayaa si kama ah gantaal ugu dhuftay diyaarad rakaab ah oo ka kacday garoonka Khomeini, taas oo ku wajahnayd magaalada Kiev ee caasimadda waddanka Ukraine, waxaana geeriyootay 176 qof. 10 Janaayo waxaa geeriyooday suldaankii Cumaan Suldaan Qaboos bin Saciid muddo 50 sanada ah saldanada Cumaan suldaan u ahaa, waxaana lagu bedelay Suldaan Haytham. 16 Janaayo dowladda Shiinaha ayaa sheegtay inuu magaalada Wuhan uu ka dilaacay viruska coronavirus kaas oo dilay dad aad u fara badan. 28 Janaayo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa soo bandhigay qorshihiisa nabadda ee Falastiiniyiinta iyo Israel, waxa uuna magaalada Qudus u gacan geliyay Israa'iil, waxaana qayb ka ahaa qorshaha nabadda ee gorgortanka qarniga ee madaxweyne Trump wadamo fara badan oo Carab ah. sidoo kale bilowga sanadkan dowladda Ingiriiska ayaa isaga baxday midowga Yurub kadib geedi socod dheer oo muddo soo qaatay kaas oo Ingiriisku ku doonayay inuu isaga baxo midowga Yurub.